دو 5 دقيقة كلمات ديسة هل كان كسو جيدين دون سو دباب بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا وحسلام يا مدحضة يا مسؤولين تا يبهض قرضون كدمانتيد وهجامنا يصير كعدالة يقدميها محكمة السراء هراليها قرصوريها شهر كذا كل دون بالشدة رأيتك قف الباء وماشان قصوا المقام كيسان كسلام يا مر بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب رنتي shir sanadeedkan garsoorka sida la socotaan dalku dowlad walba waxa asal u ah sharciga iyo garsoorka iyo cadaaladda haddii sharciga uu adkaado oo garsoorku adkaado oo cadaaladdu adkaato waxa yaraanaya crime-ka waxa yaraanaya dembiga waxa yaraanaya dhibaatooyinka waxa yaraanaya dadka dacwoonaya kala dacwoonaya waxa yaraanaya dadka isdhacaya muhiimadeeday leedahay marka sanad walba inta shirka la qabto wixii qaldamay iyo wixii saxmay in la ogaado aaday noo dhiirigelinaysaa inaan ogaano wixii qabsoomay iyo waxa qaldamay intaba ka booliis ahaan qaybta guud annaga waxaa naga quseeya garsoorka qayban kana waxaan ka soo bilaabanaa waa la shaqeynaa daraf ka mid ahaan nahay booliisku waa daraf ka mid ah garsoorka wada shaqeyn fiican baan intaan nimid la bilaawnay runtii sidaad la socotaan dhammaantiin gaabkii iyo wada shaqeyn la-aantii ka jirtay waqtiyadii lasoo dhaafay waxay keeneen in la cadaalad doonto nimanka duurka ku jiro taleefankan cilaha geedaha la hoos fadhiya si taas looga gudbo waxaan go'aansanay in maxkamadaha cadaaladda iyo booliisku si dhaba ay u wada shaqeeyaan si looga maarmo dadka Soomaaliyeed si looga maarmo in dadka Soomaaliyeed ay cadaalad u doontaan nimanka qawaarijta oo cadawga ka booliis aan anagu waxaan qaadnay in aan isreform gareyno oo cid kasta oo ku tuhmayno in cadaalad darro ka shaqeynayso inaan soo qabno anagoo kaashanayna xeer ilaalinta oo wada shaqeyno ka dhaxayso iyo maxkamadaha insha Allah taala waan wadi doonaa waxaanan ballan qaadayaa cid kasta oo booliisa oo cadaalad darro ka shaqeysa oo dadka dulmisa inaan maxkamadda hor keeno oo dadka sida loo xukumayo kale loo xukumo marqaatina ay ka noqdaan ummadda Soomaaliyeed insha Allah taala Soomaalidu waxay ku mahmahdaa gacan daahira wax daahirisa qodobka saddexaad oo rabaa inaan ka hadlo waxay tahay garsoorku wuxuu xoog yeelanayaa marka dhammaanteen aan ka wada shaqeyno warqado ay soo baxdo qofka muwaadinka uu dacwoodo oo dacwo tago 5 sano 4 sano 3 sano ay socoto maxkamadda gobolka uu tago loo celsho gobolka Banaadir ee la yiraahdo dhulka waxaana la soo saxo qadiidaha dhulka quseeya kaabda kadib markii la keenay kadib hadana racfaan la qaato maxkamadda racfaanka la tago maxkamadda sare la tago dib eegis la tago xukunka uu soo baxo markii la xukumo oo booliiska hafuliyaan la yiraahdo oo aan nimaad oo shaqadii hal qabta la maago ayaa waxa caqabad ku noqonaya sargaal cornel oo cornel hebel leeyahay wuxuu haystaa dariiskii ciidanka wuxuu qaadanayaa mushaarka ciidanka wuxuu wataa staff ciidanka xoog qalabka sida ah wuxuu haystaa rasaastii markaas wuxuu uga hor imaanayaa sharciga wuxuu hor istaagan yahay qofkii muwaadinka ahaa ee 5 sano soo maray dhibaatadaas oo dhibtoonayay in xoolihiis uu helo saakadaas aan taagantahay macnaha ama in la qarsado ma ahan runtii caqabadaha haddii la qarsho wax hagaagaya ma jiraan oo la asturo la yiraahdo hala asturo hala waxee waxaa la rabaa haddii dalka cadaalad laga rabo in sargaalka
qabiilka ku difaacaya muwaadinka Soomaaliyeed xoolihiisa inuu ku dhaafiyo rabo nin adeerkiisa inuu kula difaacan rabo in laga qabto oo maxkamaddu markuu istaago annagu waxaan keenaynaa waxa ugu horeysa inaan taarkii soo dirno maxkamadda ciidamada qalabka sida aan u gudbino maxkamaddana aan u sheegno waxa hor istaagay caqabada hor istaagtay in la fuliyo waxaan rabaa marka in maxkamadda ciidamada qalabka sida garsoorku inay gaarsiiyaan cidda qusaysa in sargaalkaas mushaarka laga jaro loo digo la waco hadduu diido xuquuqda laga jaro la ruqseeyo kadib mooryaanu noqonaya hadda laakiin haddaan la diriro nin sargaal mushaar qaadanaya korneel macalin mahdi iyo korneel xasan baa dirar leeyahay oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo booliis anaa ninka tuuga ahaa waa korneel waa isku mid sambal marka in dadka waxa la rabaa sharciga uu shaqeeyo oo marka ugu horeyso uu qabto dadka sharciga ka hor imaanaya intaan taas runtii inta ay taagan tahay in nin sargaal sheeganaya uu xuquuqda muwaadin Soomaaliyeed inuu xoog ku dhaafiyo ka shaqeynayo shabaabkii dadku cadaalad u doonayaan madaxda qarankana waa u sheegay halkaana waa ka sheegaya Soomaaliyana waxay beeshay aslanba in runta la isku sheego macnaha la isku mujaamileynaya ama inta kan waaye kaas waaye wala gaara wala qabana wala yeela dalkan hadduu nabad rabo oo la rabo dadka in loo garsooro qof kastoo naga mid ah runta ka sheegaa la rabaa kana cadaalad sameeyo aniga waxaan ballan qaadayaa anaga booliiska ah wixii naga aadan oo karaanka inaanan qarin inaanan reehebel dhihin waxaan xaq u aragno inaan qof kasta kula dhiirano dhaano waxaana waa nala qaldan tahay macnaha waxaan waa nala qaldan tahay hadday sharci saaran tahayna sharcina saar hadday sharci saaran laga qabto waxaan wax ka qaban weynaa inaan kor u sheegnaan aan karnaa macnaha inta aan qaban karno 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 10 iyo waa qabanaynaa laakiin nin 3 baabuur 5 baabuur oo technical wata oo ay ku dhimanayso 50 qof oo sargaal ah uma dhaqaaqi karayno waa maasantiin waqtiga waa ku dheeraaday insha Allah taala sanadkan sanadkiisa waxaan ballan qaadaa sanadkan sanadkiisa inuu noqdo sanad ka wanaag badan oo garsoorku wax badan ay u fuleen oo dadku ay dawladnimada ku kalsoonaadeen oo ay dacwooyinka maxkamadaha imaanaya ay yaraadaan haddii fulintu ay badato dadku xalay aadayaan mid iska taga imaanaya mid yiraahdo waa laga adkaana imaanaya midka qabiilka iyo qoraga wax ku haysto isleeyahay waa dhamaatay qabiilka iyo qoragi waxa la gaarayaa xal ummadda Soomaaliyeed waxay aaminayaan garsoorka iyo booliiska iyo ay dawladnimada intaba sanadkan sanadkiisa waxaan rajaynaynaa inuu ka qurux badnaado insha Allah taala wana maasantiin aad u maasan yahay taliyaha waxaan